السلام الله عليكم داوديال ميل كاستو دونيدا ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Soomaaliland oo dil ka badbaaday xisbiga wadani oo baaritaan lagu sameyn doono si looga reebo doorashooyinka ka dhici doona Soomaaliland waxa kale oo daawadayaal aad ku maqli doontaan baarlamaanka Soomaaliland oo mooshin ka wada gudoomiyaha baarlamaankaasi xilka looga qaado waxaa kaloo ku maqli doontaan Soomaali ku dhaqan dalkaasi Mareykanka oo lagu xirxiray dalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal ku maqli doontaan waxaan idinka mahadcelinaynaa dhageysigiina waxaan idinka codsanaynaa ciidiina la sii joogtay inay baaqi nagu ahaato kuwa kale nagu cusubna inay subscribe noo saaraan idinkoo aad u mahadsan waxaan barnaamijka ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Bidhaan oo arrimahan aad ugu dhunduleela Bidhaan ku soo dhawow saaxiib waa dhawahay hadii aan ku bilowno Soomaaliland maalmihii u dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu waday safaro kuwaasi oo ku gaala bixinayay gobolada Soomaaliland safar qarsoodiya oo aan la sii shaacinin wuxuu ku tagay jidda hore ee Puntland iyo Soomaaliland u dhaxaysa waa Tukaraq halkaasi markii uu tagay dhacda argagax ka dhacday sida la sheegay ama la soo warinayaba dhacdaasi waxay ahayd in mid kamid ah ilaaladii ama dadkii ciidankii meeshaasi ku sugnaa uu mataqaana isku day inuu dilo madaxweynaha isla markaana xaaladii ay cakirnaatay buuq bay noqotay kadibna isaga iyo kuwa kale oo mishinkaas la fulin rabay la xirxiray oo meeshaas mataqaana laga sii qaaday arrintaana waxaa ku cadeynayo isla maalinka lafteed waxaa dhacday in gaarigii uu mataqaana la socday Muuse uu saarnaa iyo gaari kale oo shacaba inay meesha wadada isku dhaceen isla markaana gaariga halkaas uu ku burburay oo ilaa iyo xalay ilaa shalay la soo gelinayay gaarigaas oo burburka mataqaana soo gaaray Bidhaan marka baabuurka ku dhacay waa baabuurkii madaxweynaha laftiisa ku dhacay gaari shacab oo isku dhaceen iyagana waa kii ilaa iyo xalay la soo gelinay baraha bulshada hadii aan u tagno intii madaxweynaha uu waday muxuu ahaa bulshada uu la hadlayay kulamadaasi uu waday waxaa la socday qaybo badan oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waliba kuwa kulmiye yaa la socday markaas waxaa dhacday in xasaabta mucaaradka ay fiiriyeen dhaheen bal xasaab dadka jooga golaha imta dheeyeen yay qiimeeyeen saan ognahayna gudoomiyaha iyo ku-xigeenka labada mataqaana waxa iska leh xisbiyada mucaaradka markay qiimeeyeen yaa markiiba waxay baas marayeen meesha ayada qodob dood badan ay ka taagneed oo dastuuri ah qodobkaas wuxuu ahaa habka loo kala maamulayo doorashada iyo xisbiyada marka waxay baas marayeen in xisbiyada la soo hormariyo doorashada xisabtana dib loo dhigo ilaa iyo 54 mudane yaa ka soo qayb gashay kulankii 32 حزات معارض كهاين مركز سي أغلبية iyo ku ansixiyeen arintaas markii ay dhacday yaa markiiba waxa yimid golihii dib ka soo gaaray axzaabta muxaafidka oo iyagana markaa arinta iyada aad uga xumaaday isla markaana waxay sheegeen inay mooshin ka dhan ah Cabdirasaaq Khaliif inay keenayaan waa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland waxay sheegeen in Cabdirasaaq uu baal maray isaga ku xigeenkiisaba shuruucdii u degsanaa muxuu ahaa iyo xeer hoosaadka u degsanaa baarlamaanka Soomaaliland inuu baal maray oo isla markaana qodoba masiiri ah oo in laga wada tashado in ay marorsadeen asagii saaxiibadii haddaba markii la fiiriyo habka loo qaybsaday xildhibaanada Soomaaliland waxaa la sheegaa inay yihiin xisbiyada mucaaradka markii la isku daro inay 28 inay leeyihiin in la yiraahdo maxamuud xaashi oo ah jokerka Soomaaliland waxaa la sheegay inuu wato mudanayaal gaarayo ilaa iyo 28 xubnooda baarlamaan halka mataqaana kuwa kale ay yar yihiin markii qodobka markii meeshan uu ka fulo wuxuu tagayaa golaha guurtida yaa qodobka hadan iyo marti ku noqonaya ninka la yiraahdo Ciro maanta wuxuu shir qarsoodi ah la galay Salebaan Gaal oo ah gudoomiyaha golaha guurtida uu shir la galay shirkaasi waxay inta badan ay ku gorfeynayeen qodobkaasi ka soo baxay golaha wakiilada in iyagana mataqaana golaha guurtida inay mariyaan oo mataqaana qodobkaasi si aqlabiyada inay u codayaan isagana mataqaana uu baashaas garwadeen uu ka noqdo laakiin ma garan karno in uu yeeri doono iyo in kale qodobka markii meeshaas uu ka baxo wuxuu toos u tagayaa madaxweynaha marka saxiixa u dambeeyo isaga iska leh hadii madaxweynaha qodobkaas uu soo celiyo oo ku soo noqdo baarlamaanka waxaa lagu ansixin doonaa 54 mudane yaa mar kale yaa cod lagu qaadi hadii codkaasi lagu qaado qodobkaasi sax buu marka ayade
yuu ku noqonayaa marka waxaa la isweydiinayaa ma dhici kartaa mise ma laga yaabaa in muxuu ahaa intii dowladda baarlamaanka Soomaaliya intay fadhiistaan inay 54 la helo oo qodobkaasi mataqaanaa saa lagu ansixiyo oo isla markaana ay doorashada sidaas sax ku noqoto ma dhici kartaa mise wax kala dhici karo ma la garan karo laakiin kulli ida lafteeda waynu arki doonaa marka xaaladaha Somaliland halkaas baa mataqaanaa ay wax marayaan aad iyo aad baad mahadsan tahay bidhaan waxaa jiray in maalinimadii shalay iyo daraadba maareeyaha garoonka ee magaalada Hargeysa oo kamid ah xisbiga kulmiye in uu soo dhigay qorshe weyn oo asxaabta mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani uu si aad uga qayliyay maareeyahu waxa uu tilmaamayaa oo leeyahay xisbiga wadani sidiisaba kama hadlo ama ma dhaleeceeyo ama ma soo hadal qaado marka lagu soo xadgudbo jiritaanka Somaliland wuxuu tusaale u soo qaatay oo yiri xilligii farmaajo oo uu meel xun dhigay Somaliland xilligii ma garanaysa Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda dalka Mareykanka dhawaan soo maray oo sheegay inuusan aqbalaynin in ma garanaysa Somaliland la aqoonsado waxyaabaha deeqaha ee ka yimaada wadamada reer galbeedkana in ayaga loo soo mariyo u saxiixaan arintaasi wuxuu ku sheegay inaysan xisbiga wadani aysan marraba weligoodba ka hadlin ama aysan dhaleecayninba meesha uu hambalye iyo bogaadin u diray xisbiga kale ee UCI arintan maxaa lagu tilmaami karaa dhab sabiya arintan horta arintani waa in la kala jebiyo axzaabta mucaaradka yaa la doonaya laakiin markii dhan kale laga fiiriyana way jirtaayo inta badan markii Soomaaliya wax ka soo yeero xisbiga muxaafidka iyo waxa u jawaab kaliya Faysal Cali Waraabe inta badan ninka la yiraahdo Ciro iyo xisbiga sabab aad mata dhanka Soomaaliya oo ma fakadaan oo way ka gaabsadaan taasina waxa inta badan dadka qaar ay yiraahdaan ma xiriir hoose ay leeyihiin waa waxyaabo aad isku weydiiyo laakiin wax xiriir hoose ay leeyihiin ma lahane waxaan way dadkan Soomaaliyeed ee walaaladiina haska fogeynina waayo اعترافك اللي raadinayo wuxuu ku xiran yahay dadka Soomaaliyeed marka hadii dadkii maalin kasta la xagxagto waxba soo kordhin mayso laakiin hanjabaadaha markaas ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe iyo xisbiga kulmiye wax sa u sii weyn hadda matana keenayaan oo faa'iido ma jirto marka waxaan weeyo in xisbiga markii matana arrimo masiiri ah laga hadlayo waa wax la gartay laakiin hebel ba hadlay u jawaab wax matana rag weyn banaan la soo fariistaan ma aha mana wanaagsanana dhanka kale marka la fiiriyo hadii ba la yiraahdo ma hadla iyo way hadlaan barkhad batuninka la yiraahdo xildhibaanada ka tirsan Somaliland waliba waa xisbiga wadani ah yuusan ahayn ninka aad uga jawaabaya xilliga farmaajo uu hayay la soo taagnaa ma garanaysaa marraba kamid noqon mayno wax la yiraahdo federaalka Soomaaliya soo asaga ma ahayn Somaliland dadka la tirsada ee mataqaanay hadlo kamid ma aha habraha la tirsaday laakiin dadka kale wataan ku geedaaban haday noqdaan mataqaanay dadkan ciidan la yiraahdo barkhad uu ka dhashay gabooyada iyo haday noqdaan kuwan mataqaanay daaroodka la joogay mata warsan gariga iyo dhulbahantaa haday hadlaan lagama soo qaado waxba waa ruwaaciyay marka inta badan markii habraha ay hadlaan markaas mataqaanay erga iyo qiimo leeyahay la qiimeeya laakiin inta badan hadii barkhad hadlo hadii mataqaanay kuwan kale laftooda ay hadlaan wax mataqaanay isbedelayo laakiin xitaa gudaha baarlamaanka Cabdisaaq Khaliif oo ognayn in mataqaanay inuu yahay dhulbahatay hadii uu hadla xataa waxay la mid tahay ay hadlin ba xisbigaasi ay la mid tahay ma garan karno waxay loo jeedaan ogow laakiin haddana de ragani waxay ka tirsan yihiin asxaab ka tirsan yihiin asxaabtuna waa asxaab jira oo la aqoonsan yahay oo tartamayo oo ma garanaysaa maamulkii qaaraha iyo qaaraha sugayaba inay qabsadaan ويهين لكن سمهمة أنكو شيء Somaliland قبيل بحلو قيبصدي حبك قبيلنا وحا انت بدن هوس إمادان ما ملكودا هذا الصومالي أنكو شيء هذا الصومالي أو كله 4.5 بحلو قيبصدا 4 كاسة أبودله 5 كان هذا ما ترى قيلنا يان وحلق ما سوق هذا مركز سات دراد مركز كون كلنا كواس كان لميديهين وحلق ما سوق هذا مثلا هذا الكودا مركز وحلق قيمة وحاوي قف إساق ما حطلي بس أنت واساسوي حتى هذه مثلا كون سمرونك أهلان وحلق مسوق هذا حتى واي إنك هذا مثلا بين ما نقيليو اللي يراد محوها محمد أبيب Somaliland مثلا وحوم أركان مركان قار يدريم كرتا إنك شعب بدن مثلا قوته هذا السامين حقنكم مرة هدي محل ما أنت وقت لنا لها وهان لها مثلا باش يستخدم لها أما حبر جعل أهان لها أما وهان لها مثلا حبر أول أما حبر يونس أهان لها أما عيد قال أهان لها ولا قال لها كذا إن رجعت بنقول مدحون ونقول لها لكن ما جاري كرمانت واي وحقد الشيء مثلا بال نبضة كوفي عن الجليد أقامتها ها كون أحسن حاجة دجال بلا كوفي علم ما دجال إيه مكان هذا وين أدي بدو ما صرت هاي قضب كان برنامج كنا بدنا أنت هنا كبحين waxaa ku jiray in dad Soomaaliyeed lagu xirxiray dalkaasi Mareykanka
arrintaas bal hore ugu soco horta dadkaasi la xirxiray dacwadooda horta in muddaa way soo socotay oo maalinba meel mataqaanaa ayay joogtay dadkaasi xilligii covid-19 2020 uu mataqaanaa dilaacay yaa waxaa dhacay in lacago federaalka ka imaadeen lacaga deeqaa kuwaasi oo covid-19 lagula dagaalayay waxaa jiray meel la yidhahda deker oo carruurta lagu xanaaneeyo marka lacagahaasi marka Minnesota yaa si khaldan yaa loo isticmaalay lacagahan lacag aad u fara badan bay mataqaanaa ay ahaayeen hadda dadka Soomaalida ee maanta la xirxiray magacyada la soo bandhigay hadda mataqaanaa hor yaalo maxkamadda haddaan dhowr ka soo qaadano waxaa kamid ah Cabdikariin Cabdalle oo 39 sano jir ah iyo waliba Salim Ahmed Saciid Cabdiqaadir Nuur Saalax Ahmed Shariif Cumar iyo Cabdi Nuur Saalax Cabdikariim Cali Ahmed waa magacyaha liiska mataqaanaa maxkamadda la keenay ee mataqaanaa kamid ahay laakiin ilaa afartamay mataqaanaa gaaray laakiin kuwa kale ajnabi oo dalka Mareykanka ku dhashay iyo qowmiyada kale ba soo ma jiraan iyaga way jireen laakiin waxa weeye maamulkay ahaayeen way yaraayeen dadkana dadkii mataqaanaa waxaan ku soo dhacay mataqaanaa cunay bay ahaayeen marka maxkamadana maxkamad heer federaal maanta gobol ma aha waa heer federaal waxa qaadayo lacagtana federaalka mataqaanaa ka timid lacag aad u fara badan bay mataqaanaa ay ahayd iyagana mataqaanaa ay ku maqan tahay oo kulay musuqmaasuq lagu saeeday dadkan marka waxaa la leeyahay haddii dambigan isaga ah lagu helo waxaa dhacayo in sharciyada lagala noqdo qaarkoodna in xabsiga mataqaanaa xabsiga loo taxaabo haddii qofka mar xabsi u galana dee Mareykanka waxaan naqaanaa in uusan shaqaysan karin waayo qof kasta 9 number buu leeyahay 9kaas number markii aad shaqo meel u doonato markii saa magaca loo geliyo waxa soo boodi meesha lagu xiray inta lagu xiray qof shaqo ku seenay xaraam bay ka tahay mataqaanaa ma jirto qof dambiila ka tahay safarna ma safri karo qofka isaga marka dambiye badan mataqaanaa yaa qofkaas dambi haduu galo qofka oo la xiro xaaladda mataqaanaa way adkaanaysaa marka Soomaalidu musuqmaasuqi dalka ay ku hayeen iyo dadka dhibaatada ay ku hayeen iyo xaggan mataqaanaa la tageen waayo dalka hormaray reer Europe iyo Mareykankaba wax waa la cunaa laakiin si mataqaanaa xogaa siyaasadaysan yaa loo cunaa laakiin sida Afrikaanka mataqaanaa u cuneen oo waxa ma soo reebin waxa la rabaa dadka wax loo qabto waxana ay cunaan meesha fiiri waxa loogu talagalay 200 iyo waxa la 40 milyan bay ahayd waxa la rabaa inay cunaan ka soo qaad 40 milyan inay cunaan laakiin 200 dadka ay gaarsiiyaan ma laga dareemi lahayn maxay sababay marka 240 milyan iyaga bas cunaan way qabsay aqoon ku subteen eligtay bariyeen bas meesha marka wax ka dhacday marka in la dacweeyo oo dacwada muddo dheer mataqaanaa soo socotay hadda maanta marka meel khatar ah mataqaanaa ay maraysaa dhici kartana in mataqaanaa qaarkood xabsiya ay mutaan in badanna mataqaanaa sharciyada in laga ceshado yaa laga yaabaa kuwa badan kamid ah way soo carreeyeen mataqaanaa waxay soo aadeen markii dacwada koow ay bilaabaneysay way ka soo baxeen dalka isla markaana mataqaanaa wadamo kale ee mataqaanaa iska dhiibeen ay ka shaqaysanayaan way lacag fara badan ay haystaan qofkii marka u yartahay milyan iyo ka badan oo dollar mataqaanaa uu haystaa marka wuxuu Mareykanka uga baahan yahay ma jirtaba aad iyo aad baad u mahadsantahay Master Bidhaan oo barnaamijkeena faaqidaada ila faaqideeyay inta daawadayaal dib ugu kulmi doono mid kan mid lamid ah waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo